waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqa raadis kaasoo inda kaga rogi doono qodobo ay ka mid yihiin garaadgala dagaalkayna garaad cali oo maanta garoowe ka soo degay iyo qorshayaasha uu wato oo ay ku jiraan dagaal xooggan oo cusub inuu ka bilaabo deegaanada buqdharkayn meygaagle qoorlugud iyo waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka nin beesha toljeclo ah oo isna lagu dilay magaalada garoowe iyo sababta dilkiisaasi ka dambaysay iyo waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka qulqulatadii iyo weeraradii ka dhacay maanta burco ee rasaasta lagu furay maayar ku-xigeenkii iyo xildhibaanada golaha deegaanka huwanka iyo huwan kalkaalka oo la xaqiijiyey inay weerarkaasi ka dambeeyeen si ay dagaal iyo colaad cusub madaxa iskugu geliyaan beelaha walaalaha ah ee magaalada burco wadadega qodobada iyo qodobo kale ayaynu daaha ka rogi doonaa ku soo dhowaada barnaamijka waa hagaagan ku bilowna barnaamijka ee garaadka guud ee beelaha dhulbaante oo garaadjabac garaad cali loo goran ogyahay gala dagaalka ayaa maanta ka soo degay magaalada garoowe ee maamul goboleedka puntland master gala dagaalka ayaa halkaasi si weyn loogu soo dhoweeyey waxaanu qabtay shir jaraa'id oo uu markaasi sheegay qodobo muhiima udaha ka rogay ka mid tahay inuu markaasi midaynayo beelaha markaasi dhinaca laascaanood iyo dhinaca kale puntland waxaa kaloo uu sheegay markaa in qorshayaasha uu wada ay yihiin qaar markaa midayn ah oo la doonayo puntlandna markaa hiil ayaan uga baahanay buu yidhi iyo sidii markaasi ay hiilkeena siinaysa u sii wadi lahayd haddaba waxa hadda soo baxay xogo kale oon helnay uu sheegaya qorshayaasha uu wato iyo heshiisyada ay danay wada galeen inay kow ka tahay in dagaal xoogan laga bilaabo markaasi deegaanada ay wadaagaan beesha habar jeclo iyo markaasi beelaha dhulbaantay gaar ahaan deegaanada buuqdharkayn iyo meygaagle qoorlugud ilaa iyo xudun waxaana qorshayaasha hadda uu wata garaadgala dagaalka uu markaasi ka mid ah horta lacag badan ayaa la sheegay inuu xagga qurbaha kasoo urursaday lacagtaasi oo inta badan markaa ugu talagalay in dagaalkaasi ku horeeyo sidoo kale danina lacag buu dhibay baa layidhi markaa uu doonayo in attentionka ama yacni dareenkan kusoo foolle doorashooyinkan puntland ee markaa ay isimadii dhulbaantana ay taageereen kooxii doonayay baarlamaanka doorashada qabto oo ay ka qayb galaan 17 xildhibaan isdiga danin wuxuu doonaya muddo kororsi iyo markaa doorasho cod iyo qof waxyaabo noocaasa SSC-na maamul baadii ogolahay buu ku yidhi marka sidaa darteed ayuu doonaya haddaba in gala dagaalku uu jeediyo markaasi focuskan yani haysta xagga puntland sababta loo jeedinayaana waxa ay tahay amaba tallaabada la qaadaya ee uu gala dagaalku qaadaya waxa uu markaasi hadda ka bilaabayaa inuu dagaaladaasi ka horiyo dhinaca deegaanadaasi buqdharkayn iyo qoorlugud iyo aagaasi halkaasi oo dhinaca kale garaadadan raacay moogtahay dhinacii kale ciisariyoolaha dene cadaadiska saaray ay markaasi lahaayeen dee habar jeclo heshiis baan la gelaynaa iyo waxyaaba noocaas baryahaba waa kuwii nabadda hayay ma garanaysa marka ayaan halkaa dagaalada kaga fudmiba islahaayeen oo xagga doorashooyinka dani afka ciidda u geliya haddaba kontaraagan uu soo qaatay gala dagaalkuna waxa ay tahay dhammaan garaadadan wixii ay qorshaysteen in isna afka ciidda u daro dagaalka haddana markaasi uu sii horiyo oo dagaalo hor leh ayaa laga yaabaa inay hadda markaa weeraro hor la soo qaadaan kooxaha huwanta iyo markaasi dee argagixisadu oo ninka keliya tay ka amar qaataan waa garaagala dagaalka ninka labaadna waa cabdi madoobe kuwan moogtahay arka sidee garaadada leh nabad baanu keenaynaa iyo nabad iyo waxaan ku sheekaynaya dhammaantood kama amar qaataan ciidamada markaasi huwantu labadaa nin bay ka amar qaataan kooxdii moogta shabaabka iyo dee argagixisadii daacishka ah oo waxay ka amar qaataan markaasi dhinaca cabdimadoobe kuwa kalena waxaa weeye markaa kuwan isirka daaroodka ku diriraya kooxa markaa qiira jabaanta khaatumada markaasi aaminsan iyo qaar kale oo markaa iyaguna kabaraaco isirka dee daaroodka ku mitidaya oo moogta iyo magaca daarood iyo magaca dhulbaanta kor loo qaado oo gala dagaalkay ka amar qaataan marka hadda cabdimadoobe iyo markaasi gala dagaalku waa isku mowqif waxaana labadooduba had iyo jeer ay ku celceliyaan oo yidhahdaan markaa ilaa burco dusheeda olaaliya gaatama ayaanu leenahay mana joojinna weerarka warkoogu wuu cad yahay ma joojinna dagaalka bay yidhahdeen marka qorshahan waraabowtaagga ah ee salaadiinta moogtahay dhinacan beelaha habar jeclo waxay ku hadlayeen iyo kuwa garxajis iyo qolyahan kale garaadadu ay lahaayeen markaa nabad baanu doonaynaadan lama haystaanba moogtahay iyagu ay qorshahaasi waanay ka soo horjeedaan waxaanay hadda ay markaasi doonayaan inta lagu mashquulsan yahay leeyahay nabad baa la gaaray waa takhalkhal durtubo la geliyay beesha habar jeclo moogta
in iyaguna markaa ay hoos raaciyaan. Marka waxaa laga digayaa maalmaha soo socda in markaas ay weeraro xoogan ay huwanta soo qaadi doonto oo ay markaa ku soo qaadi doonaan dhinaca iyo deegaanadaasi markaa Buuqdharkayn, Qorlugud iyo Meygaagle. وهاك قضب كلا بعض برنامج كان كهلني وحوي قلقلة تدي يمكاسي وردي ما تكرد عي برعو الله شيء إن أي كوحة هو أنت هو كالكالكو أي كدم بيين waxaa jirtay markaa doorasho xiise iyo xamaasad badan oo markaasi dadka reer Burco dhani ay aad markaa loo xiiseynay maanta ka dhacday xagga moogtay maayarka la dooranayay oo maayarkii hore ee Cabdisaqiir oo la bedelayay maayar cusub oo la doortay ninka Maxamed Xasan la yiraahdo marka hadaba arintaasi waa lagu kala qaybsamay waxa ay markaasi kooxaha wadan iyo moogtay mucaaradku ay ku eedeynayeen in Cabdisaqiir yani dawladdu waxa uu jeestay iyo moogtay ku biirayo ololaha jiray marka loo kala qaybsamay yani qaab xitaa qaab mucaarad iyo dawladdu kala dhinaca kale waxa la doonayaa daba huwan kalkaalka iyo kuwantu ay markaas soo qorsheeyeen in madaxa la isku geliyo beelaha wada dega markaasi Burco oo waxa doorashada markay dhacday kadib maayir ku-xigeenku waxa uu qabtay shir jira iyadoo markaasi uu hotel bay ku qabteen sidii xildhibaanadii wax doortay ee moogtay maayir ku-xigeenku mid cusub weeyaan oo maayir ku-xigeen cusub asagana la doortay maayirka ayaa la sheegay horta in xanuunsaday oo cusbitaal oo la cararay oo moogtay aan shir jira ay ka soo qayb galeen haddaba maayir ku-xigeenku halka khudbad ka jeedinayo saxaafadda la hadlaya ayaa la sheegay in rasaas oo looga qaaday hotelkii deetana halka weerar laga geystay waxaana wararku sheegayaan in qorshahaasi loogu talagalay in halkaasi lagu laayo xildhibaanadaasi kadibna hay'adda dusha laga saaro la yiraahdo dhinacii moogtay dawladda xubno ka tirsan soo weeraray ama moogtay beelahan in la yiraahdo ninkii beeshaasi u dhashay hore ayaa beeshiisa ay cadhootay oo moogtay weerarka soo qaado maayir ku-xigeenka eegatay marka labada beelo walaalaha ay wada dega Burco in marka halka madaxa la isku geliyo ayaa la doonayay huwanta iyo kalkaalka kooxaha had iyo jeer u adeega huwanta lacagaha ka qaata ayaana kontraagaasi soo qaatay baa la yiri si ay qulqulato cusub Burco ugu abuuraan iyo dagaal hor leh haddaba waxa la sheegay halka inaanay waxyeello weyn ka dhicin kuwii falka geystay ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay badi gacanta ku soo dhigeen kuwii kale moogtay qaar baxsadana waa lagu daba jiraa wala soo qabqaban doonaa waxaanay wararka hadda soo gaariyay Burco sheegayaan in hadda ammaan tahay oo ay xasiloon tahay dambiilayaashiina markaasi jeelka lagu hubsaday weeraradaasi fuliyay waa lagu daba jiraa cidii soo dirtay iyo markaasi kooxahaasi huwantii huwan kalkaalka ee doonayay in arinta xiisada Burco ka jirtay iyo xamaasada ka jirtay in ay markaa u bedelaan mid dagaal oo ay beelaha walaalaha ay wada dega Burco madaxa isku geliyaan waxay qodobka ugu dambeeyay barnaamijkeena waxaynu daa ka rogaynaa nin u dhashay beesha Rashaq Saxaar ahaan beesha Tol Jecle ayaa lagu dilay Garowe iyadoo sababta loo dilayna ay tahay baa la magaciisa haybtiisa yani qabiilkiisa oo isaaq ahaan loo dilayay gaar ahaan Tol Jecle habar jeclo waa isku mid oo yani habar jeclahaana waa loo dilayay baa la yiri maadaama hadda ay dagaal huwantu ku hayso beesha habar jecle beegsanayaan waxa la sheegay markaa inuu meherad halka ka shaqeynayay magaalada Garowe kadibna ninkii dilka geystay oo nabarro waaweyn u geystay markaa ninkaasi ayaa la sheegay gabadhii meheradaasi lahayd in ay markaa qarisay oo baxsaday ninkaasi geystay markaasi weerarka ayaa la sheegay inuu yahay dhulbaante oo jamacsiyada sida oo kalena waxaa la sheegay cid qaada ninkaasi weel soo weeraray oo markaa kooma ku jiray in la waayay nin gariya baa qaaday baa la yidhi oo moogtay geeyey cusbitaalka qoladii cusbitaalka ee daweysa ayaa moogtahay sheegay inuu hadda caafimaad qabo moogtay ladnaaday laakiinse dhaawac weyn soo gaadhay operation weyn ayaanu gelinaba yiraahdeen waxaanay dalbadeen lacag markaasi lacagtii lagu daweeyay ay hadda markaasi soo dhigeen baraha bulshada oo madax furasho aad ninka hadii lacagtiisa la bixin waayo yani way ku hanjabayeen moogtay oo lacagtan u haysanaba yiraahdeen ku daweynay waa in la soo bixiyaa taasi oo qaab madax furasho ahaan yani sidii magafayaashii oo kale ay u hadlayaan waagaag barnaamijkaas uu ku dhayeetan kulantideena dambe nabadgelyo